بسم الله الرحمن الرحيم ولا ليال ما أنت وحقي وإمادي حفيزك وجير هاي سكول جودي كصعدة ميديا جروب كصعدة وصحافة كصعدة إمادي وحين إيجا وريستان أموره سيودعن بوماسك ويجي هذا الصور لبي تعرشان الطبن oo bishan 12aad oo iskugu imaadeen ardayda ka dhameysay wajiha high school waqtigii 60 sano oo la soo dhaafay hadda dhaxdooda 1965 taariikh 8 bisha 2 ayaa wajiha high school la asaasay bisha 2 oo hadda sanadkan soo socoto waxaa galay wajiha high school 60 guurihiisii waa 60 years as jooga wajeer high school waxaan u maleynaa school ku yeela north eastern ama eastern ku yeela oo la daa ma jiro marka waxa dadkii meesha goob jooga ka ahay indhahooda ay wax u arkeen wixii meesha imaaday laakiin waxa jirta asxaab badan oo ama waalid ah ama dan kala hay schoolka oo ogaan raba waxa si u dhaceen marka maanta waxaan warkii week ka damba oo waqtiga aas dhamaaday maamulkan wali ku jirnay waxaan la hadlahay hadda inaan in ka dabageeyo arimihii si u dhaceen maadaama idinka aasteen dadkii loo baahnay oo waalidka ahay ama shacabkii loo baahnay oo stakeholders ingiriiska lagu dhahaa aasteen oo ama ardaydan dhalay ama la dhashay ama dan weynba kala hay wajeer high school waxaan u maleynaa ardayda ka dhameysay adduunweynaha ku firaarsan yihiin adduunweynaha meel maanta continent maanta la tago oo wajeer high school aan laga helaynin ma jirto qafladda maandhoota dhacday waxaa lala boorar dilaacayo ka dhacay dad aan is arkin 60 sano dad barkood aan is arkin 30 sano ayaa isa imaaday waxaan aaminsanahay adduunkan meehna qiyaamaha taa dadkii soo maamulay arrintan soo abaabulay inay sharaf weyn ilaahay xaqiis u tahay maxaa qalbiyaal kala dheeraaday ayaa isku soo dumay oo meesha maanta waxa ka dhacay borordeeq weyna ka dhacay waxaan xasuustaa waxa isa imaaday index admission number 001 unugu ugu horeeyo oo wajeer high school register lagu qoro iyo kii sanadkii hadda aan soo dhaafnay dhamay head boygaygi ayaa meesha sawir isla qaatay arrin la cajiibay ahayd arrintaas ma sha Allah wa amru ilaahay xaqiis ka socdo ma ogi wax bilo aadan ay iska fikiri karaan ma aha arrintan waa arrin aan aniga ku fikiray muddo badan aan ku fikirsanaay alxamdulillah dadka ila gargaarina oo ila qabtay oo ay kamid yihiin boorka wajiha high school oo ay kamid yihiin odayaashii kontonka ahay oo bilowga taariikh 4 bishii 8 aan isa imaadnay oo ma hotel iskugu imaaday waxay bixiyeen 15 gudi oo culays oo xoog leh niman culus oo ayaga naftinkooda is soo bixiyo niida ku hay arrintan sidii lagu hagaajiyay oo fursad sugay maadaama wili nimankii rag ahay waxa uu madax looga dhigay Muxushuma Cabdiraxmaan Xasan Colo oo former senator oo nin ma ugu waxa secretary u ahay Abdullahi Hassan former county secretary marka odayaashii meesha waxa kamid ahay senator Abdullahi Kibrata Abdiraxmaan Abbas kamid ahay waxa kamid ahay Ugaas Sheekh Ruqaya Subo waxa joogay dad badan oo madax ay meesha joogay Simba Guleeda joogay 15 oday oo aniga aan kamid ahay oo MB-ga Wajeer East Patronka schoolkana as usuna dadka baabulay as kamid yahay Yusuf Muliro as kamid yahay ayaa maalinkaas committee la qaaday oo guushan keentay horta laf dhabarka ka ah marka reer wajeer hadastiin iyo gobolkanba iyo reer Nairobi wixii wadankan degan iyo wixii dibadda deganba wixii ka soo dhameeyay wajeer high school waxaan in dirahayaa maanta salaan guud oo farax ah ayaan in dirahayaa salaantaas oo ka soo go'day ka sheeyo laabta waa mid koobaad waa mid arrinta ugu horeysay oon iskugu imaanay inaan annaga wala tashano iskuulkeena wax u qabana wadankeena wax u qabana
aan ardaydeennana wax u qabanno oon isa imaadno oo iskuulkii wax naga dhigay aan damaanta aan ane waxaan hadda ahne iskuulka naga dhigay oo na soo barbaaray oon ku soo kornay ayaan rabnaa inaan meeshii aan unuguna aan wax return back wax la dhaha af ingiriiska payback wax la dhaha wax muddo qabal abaal kuu gala abaalka inaad u guddo ahaan aan iskugu imaadno sharaf weynaay ahayd waana ku mahadsantihiin inta codkayno inta maqashay noo imaaday dad badan oo sharaf leh oo noo imaadi lahay oo engineer maxbuub aas ka mid yahay oo rooba aas ka mid yahay oo mark ka mid yahay Mandela governor aas ka mid yahay oo maalinka idin fursad ayagana function kale ku jira oo noo imaadi wayna way jiraan ayagana mahad aan u celinaynaa waxaana u sheegaynaa ciyaarta weli ma dhamaanin ciyaarta waxay dhamaan doontaa taariikh 8 bisha 2 markii anniversary 60 guuraha la isugu imaada ayaa linka rabaa inaad meesha nala joogtiin oo nagu sharaftiin iskuulka meesha waxaa iskugu imaaday markii gadaal u noqdo taariikhda waxay ahayd taariikh 15 bisha 12 ay ahayd sanadkan marka waxaa iskugu imaaday wasiirka waxaa guest of honor ka ahay chief guest waxaa ka ahay oo fadhiga asaga u weynay oo loo yeeray cabinet secretary ministry of foreign affairs Musalia Mudavadi honorable Musalia Mudavadi was there as a chief guest as ahay waxaa kaloo la jiray wasiirka cilmiga Julius Ogambo waxaa la kaloo guest oo chairmanka guddigayni oo steering committee was joogay waxaa meeshii oolaha ka ahay waa governorgeena his excellency Ahmed Abdullahi his excellency Ahmed Abdullahi waa joogay oo cashar weyn meesha ka qaatay waxaan zaid ugu faraxnay habka aad ugu dulqaatay meesha oo waliba garab nooga noqday asaga oo aabihii wajeer waxaa maamulaha la jiray governor waxaa la jiray deputy governor giisa joogay waxaa meesha kale oo joogay Abbas KK senator joogay waxaa meesha joogay MP-ga wajeer East khayr Allah siiyo usoo cashar weyn aad meeshan ka qaatay waxaan dhihi karaa laf dhabarka meeshan maanta arrinta meeshaas ka dhacday saga xoog saaray oo nimanka guddigan siyaasiga isa keenay waxaa tahay xushmo aadan Daawud oo iskuulka patronkiisa waa ku mahadsan waxaa kaloo jira guddi technical committee la dhaha oo u weynaay yahay uwaas shaq usoo waxaa tahay technical committee ayaga waa daraga waxa abaabulay oo lacagaha iyo waxaan aruurinay oo business community isa keenay ninka asaan casha nimanka ayagana technical committee ويقولون وماشي عشرة كقاتل وحكل أبوها أو معموله سنة أحمد عبد الرحمن حسن علو يقدي كلا أو باللارسن أو شغلة إسلام وذن عبد أضيق أوينا ماشي وحصل سنة عبد الله كبرتها وحدتك معيوضة أنصار شيء آخر أيام ماشي جوي أرين لوكال هرماي أهان marka waxa dhici karta magan dad badan oo magacooda meeshan aan ku wala sheegi karin oo CEOs oo departmental heads ahay oo sharaf weyn loo niman weyn meesha joogay meesha waxa joogay kulli waa mahadsan yihiin oo imaaday oo codkayna ku imaaday waxa kaloo mahad weyn aan u celinayaa Ministry Education waxa ka imaaday DG Director General Ilyas waxa kaloo imaaday regional director or education weyna joogay department idin kulli waa la joogay county director Qoryo baa joogay aadan Roble regional director baa joogay dad aan magacooda wala sheegi karnaa meesha joogay waa mahadsantiin dadka idil oo imaaday maxaa la iskugu imaadaa waa marka su'aasha meeshan waxa la iskugu imaaday in la hagaajiyo sharciga lagu maamuli lahay laba arrin oo la iskugu imaaday sharciga lagu maamuli lahay in maalinkaas iyada la ansaxiyo sharciga lagu maamuli lahay guddigan ee sameeyay association-ka oo wajiha high school alumni association la dhaha sharciga lagu maamuli lahay in meeshii laga ansaxiyo oo guddigan ilmihii dadka ee sameeyay all boys ka ay ansaxiyaan
maxaa dhe annaga laba qof saddex qof intay meel iska fariistaan ay sharci iska soo saartaan ma soconi karto guddigaas waa inay ansixi waa la ansixi constitutionka waa la approve garay marka waxaa ku xigay officialski ayaa la doortay oo wadi lahay 3 sano oo dambe wadi lahay ayaa meeshii haddana lagu doortay officialska ayaga hay khayr allah siiyo saddexdan nimo hadda weyn 10 guddi 10 la doortay waxaa ka mid ah dadka la doortay oo chairmanka loo qaatay Maxamuud Cabdiraxmaan Xasan Culo oo chairmanka loo qaalay waa lagu qancay shaqadiisa soo qabtay tii hore dadku waxay isku raaceen shaqada hawadayna nimanka ayaga hay waxaa ka mid ah dana Cabdullaahi Xasan oo loo maqaana Cabdullaahi Furuqa umalayna waa aqaantiin waxaa loo doortay usuna secretary waxaa dana loo doortay Cabdi Xafiid former deputy governor waa aqaantiin umalayna nin caan ah oo wajaha isku ka soo dhameeyay waa usuna treasurer loo qaaday 10 Dr. Haroon usuna la doortay dad badan oo 10 la doortay mama Dr. Ruqayya Subo waa ku jirtay Nuuriya Cabdullaahi waa ku jirtay Ambiya Forest waa aqaantiin umalayna walaasheena ku jirtay guddigaas oo 10 la doortay marka waxay wadaan 3 sano oo dambe ay shaqadan wadaayeen insha Allah waana lagu guuleysanaa maxaa shaqadooda markaan term of reference waxa waaye inay ka shaqo galeysiyaan oo shaqadii ay wadaan wixii networking isku xiridda ilmihii ardaydii oo dadkii Wajeer High School inay register weyn loo hagaajiyo registration la suubiyo ilmihii naga maqnaa iyo wixii dhintay kulli data loo hagaajiyo data bank la hagaajiyo wixii nool oo jirana laga warhayo iskuulkii wax lala qabto oo ka mid tahay horumarka iskuulka development-giisa ilmaha guidance counseling wax la dhaha ilmaha waxa jira iska dib qaba oo social problems wax la dhaha iska qaba jira waxaa la rabaa guddigana haddana guddi kala bixina oo la cancel garayna motivation wax la dhaha lagu suubina ilmaha waa in niyada loo dhis markii ay arkaan 100 qof oo ka soo dhameysay Wajeer High School oo madax ay arkaan ilmahan waa ku dayanaan ayagana so it is possible ay leeyihiin waa dhici kartaa kumbe inaan iskuulkan dad maray ay madaxweyne noqdaan waa dhici kartaa waxaa marka mahadcelin weyn haddana loo celinaa gabdhihii Wajeer High School waqtigii as bilaabanay gabdhahu ka akhristay way ka mid tahay Ruqayya Subo way ka mid tahay Nuuriya Cabdullaahi ayadana naftakooda mahadcelin meesha waa joogeen si sharaf la gabdho kale oo shindheysay aan joogina waa jireen laakiin way soo direen apology waxaa kaloo meesha nala joogo mahad aan u celinaynaa oo inaad ka warqabtiin la rabaa heedhamastayaalkii hore oo dhameey waxaa meesha joogay ninkii Ndirangu la dhihi jiray u malaynaa Ndirangu markii heedhamasta Wajeer High ka ahay ani waxaan ay stand 2 intiisa ay baraysaan primary Wajeer primary ugu bartay si Ndirangu Wajeer primary ugu baraysay ilmihiisa dhalin Ndirangu waa joogaan waxaa jooga kala Siyoma oo haddana Ilaahay khayraasi islaamay oo Xasan Siyoma loo bixi ayaa joogay marka waa arrin lagu farxa Ilaahay jidku soo riday waxaa kaloo joogay Ilyas oo director general oo soo headmaster ahay waxaa joogay Axmed Maxamed Fuji joogay waxaa kaloo joogay aniga waan joogay headmasteralkii aan ka mid ahay marka dad badan oo meesha joogay oo isku waxaa kaloo joogay oo aqoonsi hadda waxaa joogay headmasteralkii iskuulihii jiiraankayga oo ana isoo raacay oo all boys of Wajeer High School iyo kuwa aan all boys ahaan oo meesha intuu arrintu ku farxay imaaday oo uu weyn yahay Kenya National Secretary Abdinuur Sabule Sultan Abdinuur as kamid yahay ayaa joogay marka meesha wax kale heray malaha waa isku media group joogay oo iyagana reportkooda bixinay oo uu weyn yahay awa brother Ayub iyo Cabdiraxmaan waxaan markaan in soo jeedinaa reer Wajeer dadteen ee reer gobolka Wajeer North Eastern idil oo iskuulkan ilmihiisa ay ka soo akhristeen iyo wadanka idil waxaan in soo jeedinaa functionkaas waa dhacday maxaa ku xiga waa marka taas waxay geed yara hortiis geed weyne hortiis geed yara la hirgalaal marka waxaa waaye
kaas waxay ahayd gogol dhigay ahayd casharka ugu weynaa waa 60th anniversary oo dhici doona bisha labaad taariikh 8 sanadkan soo socda oo 2025 waqtigaas iyada waxaan filaynaa ama madaxweynaha imaada ama nin ku dhadhow ayaa imaada waxaan rajaynaynaa dadkii iskuulka ilmaha u dhiganayeen si sharaf leh in meesha la imaado oo laga warhaya inay function weyn soo socoto waa waqti fiican oo ilmahana ay joogaan iskuulka la furay khayr Allah insiya saasaan inka dabageyn rabay waxaa kaloo jirta iskuulkan Wajir High School shaqo badan aad u baahi shaqada iyada waxaa ka mid ah in ilmihii nidaamkooda la qabto المسكلة هي بورد عن الوجود دايني وحال ليه نسولكم عن ناشونال سكول مركب وحال علمينا قلبتي الله بركود ويكبر عن أوضة رومانان دربي قاعد أركتها لقبه ولا لياله سنة كعصب أو هذا جبليت 60 anniversary عن عيارين أرديدن أي ماذاين وحال نكربا volunteers self discipline وين إن الأركا وسكول كي نظام كيس اللي بدله on isla qabano hadii aniga waxaan ay nin aaminsan there is nothing impossible waxba as ilaahay as qadare oo hada niid laga ay ka soo gasho we turn the impossible to possible waxa abgariid waxa loo waxa adig kuula eg impossible the seemingly impossible possible seemingly impossible possible waxa adig kuula eg buur هذا إلهي كترسارته أدعى صدق أرنا إنك يشكينا 2016 مركب ماشي اللي كاني وعن كوفي كري دربي كان ما أنا كسب الله شيء أنا هرد وريجي وأنا بالله وأنا وريجي وحير وهذا خير نص كيلومتر أي قدمه لابد كيلومتر أي هو ولا أوضي وحنيذ أن كوقت وحيات everything is possible وهي الله أرونا ديسو واجن وحصيرتي وأمن سنتين وجير هاي سكول جيت كما بحجر وسيملي impossible possible أنكر إنه واحد جيت أو كبحي أو هرع أو لهرجلا مانتا كعركة وحصيري امتحانك علمية حتى لو قوليت حتى وحصمرها سيبا تصمرها وحنا في لينا سنة كانت إلينا كده دفع عن إن كينين تاجد كين أنا وحنا تاجرينا مركي عن airplane أنا مقشين وجاهز قول حتى السنة كان دايش مركي I have reached my maximum ambition وحنا وأنت تسكيلها وإيدم أنت دانا هلا مقا I will prepare to exit and leave for the job for the youngsters to develop وح impossible إلا إكاي وألم هيدان شن يتون هذا مسا ماشان صامرتي وأسكت ديان لكن إلهي نتلصار كنا وأنا قرب قلي لكن حوق أن موجني ضدك يوجنا نبتن كذا ديار وتشينج وهلنا أرنت إيدت واحد عادي وأنا هذا وجه سكول ريجسترد ألمني ما أنت أنا هالين certificate وجه سكول ريجستريشن ولا صغار ريجستريشن ألمني وحن كله كلا وح سهلا ما يسكن كاس مركز ضدك سواء أخرست وجه سكول الله مركز مدوحن اللي هاي سكول كاس ماشي مانت أز جوكت قبنا أهاتها بي أهاتها وحس أهاتها ماشي سكول سو أخرست لبكي سكول سو مرت وقتها وحلا قوا go out of your way to support وحكرا إن شيء كذا أرديدي وهذا وجهي دجنا يسأل الله الله إيه أرديدي جود وسكولها دجنا يا ولا ليالو سكول كان وحن أوها جنين وإذنك سكول مركي واحد لقى جيب اللي تجيبنا هلا داية دربي قاعد أركتنا اللي تجيبنا هلا جبودين هلا إلى علي سكول على غلب كيس وحن والدك وشيء هيا سكول كي وحلا فراء وقت دو سنة أسبوع سنة كان فومن ما هاي سنة هلا دلالة سكول كي المهد دك هلا كنا دت كنا وحد لقنا إيه سكول كم قال بركة دم في سرادس أدون لقلا فيز قاعد دوتي رات كو ممكن ترى سكول ولا فراء هلا الماء هلا كنا هذا علمي كوسك وصدق يتوان ويكوا لو ويكدا فيز أرورين إيه أريدان لو جرو علمي أفرس كوار لافا
waxaan kaloo in rajaynaa imtixaankina waa soo dhowey magaan ka dambe waxaan ilaahay inkaga rajaynaa ilmihii form 4 dhamay safartaan inaas ku guulaysatiin oo arrin lagu farxo as ilaahay inka siiyo oo ilmo badan ay jaamacadda noo galaan ayaan rajaynayaa waa billaahi tawfiiq